Guys, soo dhawaada asxaabta qiimaha badan. Maanta muuqaalkeena sidoo ku bilowday iyo sidoo hore uu ka gedisan yahay. Saaxiibada qiimaha badan waxaan falanqeyn ku sameyn doonaa filimka weyn lagu magacaabo Vikram. Xalay waa daawaday, waqtigeyga waa geli. Sidoo kale saaxiibada qiimaha badan muuqaalkan laba baarti ama laba qaybood ka koobnaan doonaa. Qaybaha hore waxaan ka hadli doonaa filimka weyn lagu magacaabo Vikram. Qaybaha dambena saaxiibada qiimaha barnaamijka waxaa kaga bagan doontaan dhankaasi Bollywoodka. Cilada haysta ii soo baxda xalay markaan daawado filimka lagu magacaabo Vikram. يا سلام صاحبة قيمها بن هرت أنا نيك لغو مقع لوكيش أو فيلم كان أجاسم إمام الديسة ما يسن كررت هاي قاطو هو الآن صاحبة قيمها بن فيلم كان وين فكرة أنا شمت حدك أفلام لغو قيمية نص كمرة وانا وسي يا صوبتها أسينا برامج كنا قدام دونتان صاحبة قيمها بن سلا كور قبتين كمال حسن مدو كدو afar sano ayuu shaashada ka maqnaa sidoo kale ninkan hidkiis ugu dambeeyay uu sameeyay waxa uu maleen 2013 2014 film u guuleysto hid noqdo oo macaash laga hela waqtigaas ugu dambeeyay magasaarkan uu soo rogaal celay film qurux badan oo la imaaday sidoo kale saaxiibada qiimaha banik lagu magac fijeesa dabatu cimaamadiis ninkaas lama haysan karo ninkaas meel walba ku rido dayman noqonaa wuxuu taabtana badeecadu taabtana waa gidmaysaa sida kula saaxiibada qiimaha ban filimkan Vikram meelaha uu ku fiican yahay lama soo koobi karo qaybka sheekada loo ogaasimay excellent horta filimkan aniga cimaamadiis ma haysan karo ku dhawaad muddo 3 saac ayuu soconaa saaxiibada ma ogtiin filimkan asigoo aan rabo iga dhamaad been ku sheegi ma sidoo kale Suuriya qaybaha dambe 10 daqiiqo dambe uu soo galay dialogue adeegsanayo cimaamadiis lama haysan karo saaxiibada qiimaha ban filimkan shanta xidig aflaamta lagu qiimeeyo horta aniga waxaan siiyay shanta xidigba gacantan ka saarin ma ogtiin saaxiibada filimkan Vikram kaliya miisaanad gaaraysa 80 karoor kaliya ayaa lagu qarash garay sidoo kale cumraantiisa wuxuu soo xareey 410 karoor soo xareey sidoo kale wuxuu noqday all time blockbuster oo noqday darajada ugu sareysa film gaari kara ayuu gaaray haddaba saaxiibada qiimaha badan filimkan qaabka loo agaasimay lama haysan karo sidoo kale ma ogtiin saaxiibada qiimaha badanka lagu magacaabo Kamal Xasan filimkan xitaa ma adeegsana dialogue adeeg ma adeegsanay sidoo kale ii sheeg filimkan waa film saaxiibada qiimaha badan tareera kaliya dadka inta badan aflaamta muddo daawan jir kaliya ayaa ila fahmi kara saacad ugu horeysa filimka waxa isleedahay Kamal Xasan intuu aad laakiin saaxiibada qiimaha badanka lagu magacaabo waa jalaaga dhankaas iyo Malayalamkii ma faahfaahsan faasil saaxiibada asna meeshoo gala wuxuu ka qaadanaa isha door walba ayuu ku qaadanaa filimka leeg waxaan ogeey ninkan bushba wacdar uu ka dhigay haddana saaxiibada qiimaha badan filimkan Vikramna door laxad leh oo la taaban kara ayuu ku qaatin overall isku soo wado filimkan saaxiibada qiimaha bajalayaasha waa loo kala qaybi aniga horta waxaan la yaabaa ninka lagu magac fijeesa dabatu bandhig u sameeyay waa classic waa ninkan saaxiibada soo isku soconay soo isku quluucinay xitaa saaxiibada wajigiisa qamar jamal ka muuqato lama soo koobi karo sida daraaddeed filimkan Vikram aniga shanta xidig aflaamta lagu qiimeeyo waa si hal xidig kama reebanay sidoo kale Kamal Xasan saaxiibada qiimaha badan xal rajeen doona mashaariic kala gedisan oo haysto inuu dhameystir sida hadda ninkan saaxiibada qiimaha badan waxa qabiika filimkiis weyn lagu magacaabo Indian 2 kaasoo saaxiibada qiimaha badan oo director ka yeeshan kara sidoo kalena waxa la rajeen doona filimkan doostiisa inuu dhameystiro sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan waxa cusana director Lokesh sheekada filimka Vikram 2 inuu iga soo buufsiyo waxaan sugi lahaa xifaaltan ka dhaxmari doona ninka lagu magac Kamal Xasan iyo Suuriya saaxiibada qiimaha badan ogtiin filimkan 10 daqiiqo oo kulleeya sameyntiisa nus kuma qaadin kaliya asiga ninkan wuxuu saaxiibada qiimaha badan loyalty oo fans u yahay ama daacad taageernimo u yahay ninka lagu magacaabo Kamal Xasan wuxuu yiri waa reemood in Kamal Xasan aan shaashada la wadaago inkastoo saaxiibada qiimaha badan asiga Kamal Xasan iska soo rimaan laakiin ninkan saaxiibada qiimaha badan filimkan qaybta labaad asiga laadarka noqon doonto taas waa official laakiin shaqada filimkan waqtiga bilaaban doonto lama ogo ma ogtiin saaxiibada qiimaha badan fijeeta tabatu ninka lagu magacaabo Kamal Xasan qayaana yar uu ku sameeyay qayaanadaas waxay tahay taqaana mar waxa dhaceyso Kamal Xasan ninka lagu magac fijeesa tabatu gacanta isla galaan ay fir isla wadaaga ultimate waa Kamal Xasan saaxiibada qiimaha badan shaashada markay timaado wajiga sidoo kale gacan ay timaadi fijeesa tabatu ay saaxiibada qiimaha badan libita qaat inagana waa ku dhiiban kartiin aragtida aniga waxaan qabaa markay gacanta isla tageen Kamal Xasan horta waxa ay sheeg waa loo awood sheegtay meeshaas waa loogu adkaaday sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan filimkan Vikram 2 qaybtiisa labaadna fijeesa tabatu kuma soo laaban doono markay fijeesa tabatu waa ninka waxa lagu dhax qarxiyay sheegeen meeshii baqaarka lagu dhax qarxi sidaas ku dhintay filimkan qaybta labaad waxa loo dabana waxay tahay xifaalta ka naxmari doono Kamal Xasan inka lagu magacaabo Suuriya
saaxiibada qiimaha badan filimkan aniga shanta xidig aflaamta lagu qiimeeyay shanta bawaasi sidoo kale adigan hadda filimkan daawatay shanta xidig aflaamta lagu qiimeeyay inta siisay aniga filimkan wax dhaliil uma haayo waa iga gadan yahay meel aan ka xooro ma jirto kulligiisana waa qaatay sida daraaddeed filimkan isku soo wada dub saaxiibada qiimaha badan waa diamond aan la helin sidoo kale aniga filimkan Vikramna qaanad gooni ayaan geliyay halkaas aan ugu baxaa saaxiibada qiimaha badan filimkan Vikram bal markaan waxa umaan doonaa Bollywoodka iyo dhibaatada haysato filimkan Vikram ma wada daawanay kuma arkin meel tayo leh oo qurux badan lagu doomaan arkin jilaayaasha labiska qurux badan ay qaadanayaan ma arkin sidoo kale jilaayaasha filimkan wax ma aragtay oo make up loo mari ma arkin qurux xaggan oo dhagal meeshan tayo iyo waxa shaqeynayso sheekada mar walba boqor ah filimka sheekadiisa di wanaagsan tahay qurxin uma baahno sida daraadii saaxiibada qiimaha badan Bollywoodka laba dhibaato ama laba angalan ka eegayna meesha laga haayo number 2 waxay tahay horta laadar awood badan maanta oo Bollywoodka ku tashanayaan oo ma aragtay hadii maanta asiga iyo atooraha filimka iska la ormaa act u saaray horta ma haystaan number 2 laadar awood badan Bollywoodka ay haystaan waxa ugu dambeeyay ninka lagu magacaabo Amrish Puri oo dhowr iyo 20 sano ka hor geeriyooday ninka Amrish Puri Soomaali inta badan wax u yaqaanaan Salim Said saaxiibada qiimaha badan laadar awood badan waxa ugu dambeeyay Bollywoodka ay haystaan ninka lagu magacaabo Salim Said inta badan Bollywoodka fiiri aflaamtooda ma awood badan hadda aniga waxaan ka sheekaysanayaa filimka uu soo wata SRK ee Batan oo asiga iyo sidoo kale John Abraham ay ku xifaaltami doonaan badan ma aragtay filimka Bollywoodka jalaaga iyo laadarka uma qaybiyaan awoodda marka hadda filimkan hadda daawanay Vikram waa loo kala qaybi maanta lama dhahay Vijay Sethupathi maanta door fiican lama siin maanta aniga marka laga soo tagay Kamal Hassan doorkiisa ninka labaad ugu powerful badan oo door fiican la siin waa ninka lagu magacaabo Vijay Sethupathi ninka saddexaad ku soo xigana waa ninka lagu magacaabo Fahad Fasil saaxiibada qiimaha badan filimkan saddex soconay asoo aan rabaa iga dhamaad xaqii sidoo kale Bollywoodka saaxiibada qiimaha badan caqabada haysta waxay tahay jilaa walba markuu fanka soo galay wuxuu roo inuu atooro noqdo yaa laadir noqonaa marka sidoo kale saaxiibada qiimaha Bollywoodka hal nin asdahay ninkaas diimaanta oo saldhigta fanka waa Salim Said labaad noqona asna hadda wuxuu dhahay ani mardama film ma aragtay shaashad xumaan kuma matalo ninka lagu magacaabo Sonu Sud badan aflaamta ma aragtay oo doorka xumaanku ka qaato doorkiisa door powerful ahaan jira asna hadda wuxuu leeyahay ana hadda kadib laadir ma noqonaa uu taagan yahay waxa shaashada hadda kadib waxa ii sheeg inaa bandhig iyo ii sheeg wanaag aan ku soo muujimo ogi xumaan shaashada kuma sameeyna u dhahay sida daraaddeed horta Bollywoodka ma haysan saaxiibada qiimaha badan laadir awood badan mid laba saaxiibada qiimaha badan Bollywoodka haysata waxay tahay laaluush waxay laaluushayaan dadka ma aragtay aflaamta falaqay sida ninka lagu magacaabo Taran Adrash iyo midkoo kale lahay KL raggaas hadda caloosh u buuxinin filimkii daawadaasha ay xumeynayaan waxay leeyihiin filimkan waa liita saan way social media saaxiibada qiimaha badan ku ajaafinay sida daraaddeed filimkana daawasho fiican ma helaan sidoo kale inta badan Bollywoodka saaxiibada qiimaha badan caqabadaasna way haysataa ninkan lagu magacaabo KL sidoo kale ninkan lagu magacaabo Taran Adrash haddaan dhunta u buuxinin adeeg ku ajaafinayaan sidoo kale mogtay filimka hadda oo saaran tiyaatarada joogjoog hogaamiye ka faran dhawan ninka lagu magacaabo Taran Adrash ninka lagu magacaabo Karan Johar lacag adag iyo caloosho iyo buuxay sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan aan xidhiidha Bollywoodka ha isku laabtaan sidoo kale ma aragtay laadar maanta lagu tashan karaa la imaadaan sidoo kale looshkan ay bixinayaan dadka aflaamta falanqeeyana ay iska dhaafaan saaxiibada qiimaha badan inta badan koonfur Hindiya way isku doowiyiin wax ma oo la loosh dad la siiyo aflaamta falanqeeyana ma jiraan laakiin way jiraan dad aflaamta falanqeeyay laakiin dadkaas dhanka ma aragtay positive oo wanaagga bay filimka ka sheegaan inta xidig ay siinayaan sidoo kale filimka ay soo daawanayaan baleesho leeyahay wuxuu fiican yahay bisi ku sheegaan laakiin maanta jira inuu baxnin falanqeeyo ah lacag ma siinaa horta producer inuu baxnin ma aragtay isha falanqeeyo lacag ma siinaa caloosh ma buuxina aamus ama iyo hadal ma dhahay laakiin Bollywoodka saaxiibada qiimaha badan cimaamadooda waa dhacday markaan Bollywoodkana dhiiqada ugu xumeeyay dhax fadhiyaan sidoo kale mugti saaxiibada qiimaha badan Bollywoodka ku dhawaad 10 film ay soo wadaan waa remake waa koonfur Hindiya laga soo qaaday hadda filimkan ay soo wadaan Saif Ali Khan Hector Roshan lagu magacaabo Vikram Fenda waa remake saaxiibada qiimaha badan waxa laga soo qaataa min laga soo qaataa Arma Dafani Vijay Sethupathi ayaa ku xarakeen dhowr film ay soo wadaan Bollywoodkana saaxiibada qiimaha badan waa remake sida daraaddeed waxaan leeyahay Bollywoodka cilada ay haystaan ha ka baxaan cilada kala jirto xitaa saaxiibada qiimaha badan Bollywoodka inta badan jalaayasho ay kala cabsadaan maanta laba jilaa ma aragtay awood badan isku keeno hal film ma wadaagayaan way baqaan waxay leeyihiin ninkan mujraagan ka saameyn badan ana maanta xaq waa filimkii weynaa tar baraar hadii maanta leeyahay Ajay Devgan Akshay Kumar sameeyo way diid lahay ma yeelayaan waxay leeyihiin ninkan mu ka saameyn batay kalsooni
دايركتور كبا كلسوني كوما قبان سيدو كلا بولودك علدا هايست waxay tahay saaxiibada qiimaha badan director maanta oo wax iqtiraac cusub sameynayna ma haystaan way yarhiin directorada way yarhiin faraq ku tiris waa kaasna waxa laga yaabaa 2 sano ama 4 sano inuu hal film ama juhdi waqti geliya laga yaabaa sida daraad waxaan ilaa Bollywoodka meesha ugu dambeeyay oo sagxadda ay taagihiin sidoo kale markaan waxaan dhihi koonfur hindi ay yasayn wax dhijir waxaan waa afar golobad maanta oo aragnaa koonfur hindi waa shumaca waxay noqdeen ishaag fank hindi odeel noqdeen ebel saaxiibada qiimaha badan koonfur hindi iyo Bollywoodka saameyn badnaa maanta inta badan aflaamta adduunyada Bollywoodka labada jeclaa laakiin hadda koonfur hindi 15 sano ugu dambeysay cirka ama boominka ay galeen sidoo kale hadda Bollywoodka waxyaabaha kale cilada haysta waxay tahay saaxiibada qiimaha badan adduunyada waxa laga fiiraa waxa mad aragtay isha kala jira dhaqan jira Bollywoodku waxay ka zuuleen dhaqankoodana ka tageen dhaqankii oreer galbeedkana maysan gaarin dhaxda ay ku jiraan waa lumeen maxaan saas u leeyahay Bollywoodka badan aflaamtooda traditional ku dhaqamadooda hindiga sidoo kale isha adeeg waxyaabaha ma aragtay asaasiga u ahay maysan ku durjin hadda reer galbeedka iska dhigan iyo Hollywoodka iska bareejay iyo ma gaarin Hollywood ma gaarin hindi ma ka soo tagay dhaxbartamay taagin oo vols ku soo wada dub saaxiibada qiimaha badan Bollywoodka أنا وحنا ليه لو حاول شو معود ودمي أيهم باشدن كرا سيدا دراد فيلم كان فيكرم إمام الدين سما هاي سنكرم دايركتور لوكيش وحن كبريا فيلم كان فيكرم 2 هاي جسوبه في لبضو كلاتين أفرته مسوي كرنا إلا لبضو كلاتين سد حدا شقديسه ليه هنوب لا ساعد دبيا قل لبضو كلاتين سد حدا وداون هدو إلهي نجارسي ونفط نوجام سيدا دراد فيلم كان فيكرم أنا جوا إجا جدينه شن تحدق أفلام تلوجو قيمة أنا شن تيس حدقنا وسي هدنا أنا فام برج وكلسو دقي مر لواتي مر سد حدي بقول مر ما في سنة كمد على فيلم كان حكنا نقولنا فيلمada aan mar walba aan ku cishto sida aniga filimada aan ku cishto xakamada filimka Homeraas daawashiiska ma daala filimka Gubta daawashiiska ma jigaala ii sheeg filimka Soldier daawashiiska ma gaaro kama daalan dhay waa ii xariisan yahay sidoo kale mahoro kama daala waa ii yaala intaas aflaamta aan ku cishto oo kamid noqona filimkan lagu magacaabo Vikram hadda adiga filimkan Vikram daawatay shan xidig aflaamta lagu qiimeeyay intee xidig ay siinaysa aragtidaadana comment noogu biirin sida daraadii saaxiibada qiimaha badan halkaas nagu dhan falanqaynta ka sameeynayna filimka Vikram aan wax dhalin u waayay iyo sidoo kale Bollywoodka meelaha ay kulli taan cilad ay haystaan aan sheegin halaas noqdan sida daraadii Bollywoodka dux qaadanayaan waa un maqli doonaan sida daraad hadda ka hor marna waxay dheysay kan gaan rood Bollywoodka in maanta ay sumcadda hoos u dhacdo iyo sidoo kale oo fanka maaragtay ka zuulaan أو فلانتو الإسكندية واحد أصوب حدا دقنكي أي كتير كل جرالك أي لهنجرين أي كتير سيد دراد كان جانا أن هذا الكاسنا وكل عسناي وتكون سنتين صاحبات داش أضاعت المقال كحل كاسنا برنامج كينا فلانقين تهديت أمريكا كوغري صوب بقنا جنال كينا سبسكرايب نصار صوب وكل لوينا مقال كلا جنا صارت أركتلاكم أنت نغرب هدا كمتى صاحب دور نرجع مقال كشير صاحب وناكسنا هذا وكل جنال كوغري صوب أنت برنامج كم برنامج لهم كل منا أمان الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته